Asalaamu calaykum soo dhawaada ku soo dhawaada muuqaal cusub waxaan rajeynayaa maalintaada inay ku tahay maalin qurux badan haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqato subscribe noo saar gambaleelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddaa hore noola joogtay oo familka iyo asxaabta ka mid tahayna like noo saar asxaabtaada noo sii share garee si dad badan ay kaga faa'iidaan muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa jadwalka cunto siinta cunuga sanad ilaa iyo 3 sano oo jiro waxaa jirta hore fiidiyo aan kaga soo hadalnay oo ahaa jadwalka cunuga sanadka ilaa 3 sano quraacdiisa ah ayaa waxaan kaga soo hadalnaa muuqaal hore marka muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa jadwalkiisa oo dhameystiran oo ah cunuga markuu sanad jirsado ilaa iyo da'da 3 sano uu ka gaarayo jadwalkiisa cuntada ayaan kaga hadli doonaa muuqaalkan marka soo dhawaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan cunuga jadwalkiisa cuntada horta maalintii waxaa loo qaybinaa ilaa iyo 3 oo ah maxaa la dhahaa in 3 ugu waaweyn oo quraac iyo qada iyo casho iyo 2 oo ah in maxaa la cunuga subaxii quraacda iyo qadada inta u dhaxaysa mar asiinaysid iyo mid kale oo ah qadada iyo cashada inta u dhaxaysa mid kale asiinaysid marka labadan yar yar oo quraacda iyo qadada inta u dhaxaysa iyo qadada iyo cashada inta u dhaxaysa ma ahna cuntooyin adag iyo asiinaysid laakiin waa qudaar iyo faakiho iyo waxyaalahaas in asiinaysid cunuga maxaa la dhahaa korinshihiisa iyo jirkiisa u baahan yahay in asiinaysid waaye laakiin tan kale oo ah quraacda qadada iyo cashada tan kalena 3daas ayaa loo qaybinaa marka jadwalkiisa cuntada 3 ilaa 3 sano uu ka gaarayo sanadka ilaa 3 waxay noqonay 5 waqti oo maxaa la dhahaa cunugii uu cunto qaadanayo in u dheer yihiin caanooyinkii iyo maxaa la dhahaa wixii cabitaan aan sii lahayd jadwalka tan koowaad horta waxaa waaye cunuga markii subaxii uu waaga bariyo oo cunuga cunto siinay sidoo kale waxyaalaha sokorta iyo nasho bahalka ay ku badan yihiin waxyaalaha sokorta iyo ku badan waxaa haboon cunuga in aad siisid maxaa la dhahaa maalinta gelinka dhexe ama gelinka dambe oo kale laakiin subaxii hore kale markuu hurdada ka soo kaco aadan ku bilaabinin subaxii hore kale cunuga inaad siisid fiican waxyaalaha carbohydrate-ka ah sida maxaa la dhahaa inaad rooti u samaysid cunuga inaad maxaa la dhahaa ceesh iyo sabaayad iyo bariis iyo waxyaalahaas inaad u samaysid waxyaalaha carbohydrate-ka inaad siisid cunuga haddii maxaa la dhahaa oo iyo maxaa la wixii aad ku siin kartid oo kale jadwalka subaxdii ah inaad taas noqdo waxaa qurux badan oo kale in jadwalkiisa oo kale qadada oo kale maxaa la cunuga markaa siinaysid aad ugu dartid borotiinada oo kale sida maxaa la hilibka gaduudan malayga oo kale doorada oo kale hilibka shimbiraha oo kale hadaa heli kartid aad ugu fiican yahay ilmaha kulinshooda hilibka shimbiraha hadii hilibka shimbiraha uu heli kartid oo kale maxaa la waxyaalahaas oo kale hadaa u heli kartid ukunta oo kale maxaa la aad ugu fiican tahay ilmaha oo maxaa la jadwalkooda cuntada waxyaalaha cunug cuntada aad yahan waxaa haboon inuu jadwalkiisa u qaybsanaada carbohydrate-ka cunuga oo maxaa la ugu baahan yahay waxyaalaha oo jirkiisa ugu baahan yahay oo ka qaadanayo energy daaqay wuxuu ugu baahan yahay borotiinaadkan oo cunuga oo ka qaadanayo waxyaalaha korinshaha lafihiisa iyo murqihiisa ay kaga baahan yihiin oo jirkiisa u baahan yahay oo ka qaadanayo iyo qudaarta iyo faakihada oo cunuga jirkiisa wuxuu u baahan yahay oo ka qaadanayo marka waxaa haboon nashawiyaad kaliya ama carbohydrate kaliya inaad cunuga cunto uga dhigin inta badan Soomaali jadwalkooda marka fiirisid oo kale waxaa arkaysaa in cunuga subaxii hore quraacda canjeerada dadka cunayaan gees oo ka cuno qadada bariiska la karsanayo wax ka cuno cashada hadii oo baasta ama digir iyo reerka ay karsanayaan oo wax ka cuno oo cunuga asaga dhanba jadwalkiisii uu ku badan yahay carbohydrate-ka cunuga borotiin badan uusan helaynin fitamiino uusan badan uusan maxaa la jadwalkiisa cuntada aysan ku jirin qudaar iyo faakiha badan cunuga inuusan helaynin oo kale ay u badan tahay jadwalka marka jadwalkaas oo kale cunuga korinshihiisa ma anfacayo oo maxaa la dhahaa waa laga qurux badan yahay waxaa wanaagsan oo kale subaxii markaa quraacdiisa siinay sidoo kale in maxaa la dhahaa carbohydrate horta ma ka marnaaysid hadii oo maxaa la dhahaa rooti u sameynay sidoo kale qamadiga oo kale ugu sameeyay fiican hadii cunuga uusan jiran uusan ka qaadaynin maxaa la dhahaa burka cad xooga waa laga qurux badan yahay hadii aad ka maarmi kartid inta xad inaad ka maarantid fiican oo maxaa la dhahaa kan qamadiga caadiga ugu bedeshid maxaa la dhahaa marka siinay sidoo kale waxyaalaha carbohydrate-ka ah hadii oo ay dhacdo kale inaad ceesh ama sabaayad aad samaysid sidoo kale quraacan aad samaysid okay bye laakiin waxaa haboon waxa lagu daraayo kale cunuga inay u noqotaa wax maxaa la dhahaa borotiin wax uu ka heli karo kale hadii subaxii kale aadan u sameyn karin inaa maxaa la dhahaa hilib iyo inaad qada kaga dhigto quraacna kaga dhigto aadan heli karin oo kale axsan waxaa haboon waxa quraacda asiinay sidoo kale hadii canjeero u dubaysid ama maxaa la dhahaa ceeshi sabaayad asiinay sidoo kale ina ukun ku siisid لأن عنق بروتين ونقني أو بروتين وكهلا ما نقني سكر وهدرت كل عنق نوكو قرعة مرك أقعد سيني سدوك الهدية بريس كرسوكله وجيران وحاهبون إن محلها هلب كجدون أو قدرت أما ملاي أو قدرت هل أنت كلينا مفيعنا oo inta badan in cunuga maalin kasta maxaan lahaa hilib geel ama hilib ari oo kale cunuga maalin kasta la siiyo ma qurux badan waxa ka qurux badan cunugii waxyaalaha borotiinka leh ina isugu bedeshidoo kale
اسبوع 3 maalin ama 4 maalin oo kale kasii hilibka gaduudan laakiin 2 maalin oo kale waxa ka soo gelisaa malay u soo gali laba isbuuc dambe oo kale 2 maalin waxa u soo gelisaa oo kale doorada waa hadii aadan u awoodin in cunuga maxaa lahaa maalin dhaaf oo kale maanta inaad maxaa lahaa siisid malay berri hilibka gaduudan oo xoolaha aad siisid saa dambe oo kale dooro aad siisid hadii aysan ku soo rogaleynin oo gooraan isku day 7 maalin inaad hilibka gaduudan u wada dhigin oo maalin aad u soo gelisaa malay maalin aad u soo gelisaa maxaa lahaa hilibka doorada oo kale cunuga si uu jirkiisa maxaa lahaa waxyaalaha uu baahnayo dhan korinshihiisa iyo maxaa lahaa jirkiisa wuxuu u baahnaa oo mid walba uu kaga qaato oo hal mid joogto aadan uga dhigin midna ugu hadii hal cunto oo joogto ah ka dhigatid oo aadan bedelinin waxay leedahay in anemia ay kugu keentaa liana maxaa lahaa jirkaada waxyaalo kala duwan u baahan yahay wixii kala duwanaa meelihii kala duwanaa laga heli lahaa adigina ma aadin marka just hal cunto markaas isku koodid oo maxaa lahaa aadan waxyaalo kala raadin waxay u badan tahay in qofka uu anemia ku imaato ilmaha markay yar yihiin aad iyo aad ay ugu nugul yihiin in maxaa lahaa anemia ay ku timaado marka hooyadoo kale waxaa haboon in hadii subaxii cunuga karbohaydrate ay siinayso ugu yaraan hal xabo u kuna ee maxaa lahaa ku siiso si maxaa lahaa karbohaydrate borotiin u raacay oo naqato hadii qadadoo kale cunuga bariis iyo baasti iyo waxa uu kariso kale ugu yaraan isku daayadana borotiin u raacsi sidoo kale waxyaalo maxaa lahaa cagaar iyo ansalaati waxaan ugu dirtid hadii aysan dhici karin oo kale in maxaa lahaa casiir oo maxaa lahaa cabitaan u shiidid biyana aadan kaga dhigin maadaama maxaa lahaa karbohaydrate ay ku badan tahay borotiin fiican aysan qadada hilib fiican cunugi maxaa la ilmihi ku filan aysan ku jirno kala dhacdo waxa haboon in maxaa lahaa khudaarta iyo faakihooyinka oo kale aad u badisid ama cabitaan fiican cunug ilmihi u shiidid si maxaa lahaa waxyaalaha jirkooda ugu baahnayeen kaga helaan maxaa lahaa cashadoo kale waxa qurux badan cunto fudud cunuga dheefshiidkiisana u fudud maxaa lahaa karbohaydrate aan ahayn oo kale oo borotiin hadii heli kartid oo kale ama khudaar ama faakiyo kale hadii heli kartid ina casho kaga dhigtid liana ilmaha habeenkii korinshahooda waxa la soo dayaa hormoonka korinshaha ilmaha marka hadii cunuga cuntadii oo qaatay oo dheefshiidka uu culays oo ka dhigayo kale cunto adag aasiiso kale oo maxaa lahaa habeenka dhan waxa dhacaysa marka in cunuga jirkiisa uu dagaal kula jiro cuntadan adkeed oo qaatay sida jirka uu burburin lahaa oo maxaa lahaa oo jirka uu kaga faa'iideysan lahaa inuu jirka ku mashquulsan yahay laakiin hadii ay jirto in cunuga cunto fudud aasiiso kale dheefshiidkiisa aan culays ku ahaynin waxa laga yaabaa marka in xilli hore intii cuntadii la shiiday cunug jirkiisa ka faa'iideystay hormoonkiisa korinshaha la soo deeyay cunugiis maxaa lahaa hurdo fiican uu gala dhici karto laakiin hadii dheefshiidka culays oo ka jiro kale cunug hurdadiisa xataa ma saxmayso oo maxaa lahaa cunug hurdadiisa maxaa lahaa xogo qalal ayaa ku imaanaya marka waxa qurux badan cashada cunug waxa uu dhigaysid inay noqoto cunto fudud maxaa lahaa si qalal oosan ugu imaanin oo kale hurdadiisii hormoonkiisa korinshaha loo soo daayo oo cunuga korinshiisa uu wanaagsanaado marka waxyaalaha 4 saac oo kale qudraacadii qadinta u dhaxaysa ama qadi cashada u dhaxaysid ina fiyaakihooyin sidoo kale sida ansalaati iyo maxaa lahaa liime iyo maxaa lahaa qudaar aad soo jarjartay isugu dartid oo kale qadadii cashada u dhaxayso kale galabka 10 saac oo kale in ilmihi wax yar fudud aasiisid inta casho laga gaaro qudaar iyo faakiyo isugu darsan ah si cunugi korinshihiisa waxyaalaha fitamiinada nafaqada uu u baahnaa ugu qaato marka hadii maalinta cunugi karbohaydrate oo helay jirkiisa ku filan borotiin oo helay faakihada iyo qudaarta oo helay casiir fiican cunuga u shiido kale korinshihiisa uu dhameystiran yahay wax kama baahno ilaa 5 jeer cunuga u baahan yahay sanad ilaa 3 sano uu ka gaarayo 5 jeer jadwal cunto ayuu cunuga kaaga baahan yahay waxa kale jirta cunuga markuu sanad jiro oo asiin kartaa oo kale waxyaalaha ilmaha mamnuuca ka ah inta 5 sano ay ka yar yihiin sida sokor iyo cusbina cuntooyinka ugu dirtid oo kale laakiin aadan ka badanin ina malab siin kartid oo kale iyo ukunta qaybteeda cadaanka ah ina cunuga siin kartid oo kale cunuga markuu sanad gaar intaas buu u bilaabi kartaa waxyaalaha mamnuuca ka ah inta sanad uu ka yar yahay oo kale cunuga waxa kale oo haboon hooyada inay fiiriyaan oo kale maxaa la cunuga qofka hayso ama aabaha cunuga sanad hadii uu jiro kale maxaa lahaa ilkihim u soo bixin cunugi maxaa lahaa ma gurgurana ama darbiyada ma qabsana maxaa lahaa in cunuga qoortiisa ma cishana marka hadii ay dhacdo in cunugaada 6 bil uu soo gaaro uusan qoorta cishanin oo kale ma ahan inuu kadib dhacay cunuga hal raba 4 bil inuu meelahaas 5 bil inuu qoorta cishto kale hadii laakiin 6 bil 7 bil soo gaaro cunuga uusan qoorta cishanin ma ahan dib dhac ku imaaday laakiin waxa laga yaabaa in cilad kale oo jir ama wax ka yaala ay jiraan cunuga uu kaaga baahan yahay in isbitaal geysid xaaladiisa caafimaad ala socotid midna ogow inta uu cudurku cusub yahay hadii dhakhtar iyo maxaan lahaa daawo ala raasatid ilaahina baridin waxay u badan tahay in cunuga caafimaad loo helo laakiin mar cunugi cudurka uu ku tarax tagay oo maxaan lahaa meel xun uu gaaray waxa laga yaabaa in cunuga xaalada wax laga qaban karin oo kale isbitaalka ala tagtaa marka waxa qurux badan waalidka inay fiiriyaan insha Allah video waxaan soo gali doonaa hadii Ilaahay yiraahdo maxaa lahaa ilaa ay waqtiga cunuga wala dhihi karaa waxa soo kadib dhaco kale
kasoo qaado karo gurguridka kadib dhacay cunuga goormee la dhihi karaa socodka kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunuga inuu fariisto kasoo dib dhaca goormee la dhihi karaa ilkaha xilliga usoo bixi lahayn kadib dhaca goormee la dhihi karaa cunuga inuu qoorta cishto kale xilliga uu la dhihi kara xilligaas uu kadib dhaca waa goormee xilliga la dhihi karaa kale maxaa la dhahaa cunuga inuu hadalka uu hadli waayo kale hadalka uu kadib dhaco goormee naqan kartaa in cunuga hadalka uu kadib dhacay insha Allah waxaan isku dayaa inaan muuqaal ka soo sameeyo oo aan soo gari doonaa isku dayaa insha Allah marka aan jaanis helo marka insha Allah waxaa wanaagsan waalidka inuu cunugiisa la socdo xaqiisa maxaa la dhahaa korashihiisa isbedelkiisa inuu cunug la socdo si hadii xilliga loogu talagalay cunuga kadib dhaca waalidkii uu maxaa la dhahaa intibaah u leeyahay oo cunuga isbitaal u geyn karo maxaa la dhakhtar caruureed iyo dhakhtar takhasus kale uu la raadsan karo si maxaa la cunugiisa uu xilli hore caafimaad iyo wax ugu raadiyo ilaaha caafimaadka insha Allah muuqaalkaas oo isku dayi doona inaan soo sameeyo oo waqti aan u raadiyo soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqataa subscribe no sarga malaalkana furo hadii hore aan la joogtay like no sar asxaabtadan u sii share gareey soo dhawaada